dugsiga Cigaal Schools oo halbeegiisu yahay helitaanka aqoonyahan daayara oo wax bari karta barbaarta waxa uu soo baxay qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland si loo helo aqoonyahan wax ka bedeli kara deegaanka iyo dalka ay ku nool yihiin iyadoo kobcinta aqoonta macalinku ay tahay dhisida garaadka bulshada iyo hagaha mustaqbalka ubadka ayaa maamulka guud ee dugsiga Cigaal Schools oo markii labaad tababaro furay macallimiinta kala duwan ee wax ka dhiga dugsiga Cigaal tababarkan oo la xidhiidha tayeynta habka wax xasilinta fasalka iyo dejinta imtixaanaadka waxaana tababarkan bixinaya khubaro ay aqoontoodu sareyso waana mid lagu doonayo inuu horseed u noqdo horumarka horusocodka dugsiga Cigaal Schools si ay macallimiintuna ugu dhiiradaan xoojinta tayada ubadka ay soo saarayaan maamulka guud ee dugsiga Cigaalna waa mid hadba ku hawlan qorshayaasha lagu dardargelinayo dugsiga si uu dugsigu u noqdo mid daboola baahida waxbarasho ee ka jirta gobolka Gabiley waxaana furitaanka tababarkani maamulka dugsiga iyo macallimiinta kala soo qayb galay gudoomiyaha waxbarashada gobolka Gabiley ugu horeyn waxa halkaasi ka hadlay oo tababarkan ay faahfaahiyay maamulaha guud ee dugsiga Cigaal Professor Cabdiwahaab Jaamac Umar marka waxa weeyaan seminaarku kulli qof kasta oo bilowaadan aqoontu doona ha yeesho cilmigu doona ha sito mar walba waxa loo baahan yahay waxa weeyaan in aqoontii qofkaasi bartay in refresh lagu sameeyo oo waxa weeyaan qofkii waxa weeyaan aqoontiisa uu sii siyaadiyo duu macallin yahayna wixii macallimada ku saabsan loo sii xoojiyo wixii tilmaanus u baahan yahay dadka ka aqoonta badan looga baahan yahay in la siiyo waxa laga maarmaan mar walba in aynu waxa weeyaan maskaxda ku hayno oo aynu dadaal galino si nidaamka wax dhigista fasalka marka la soo galay ilaa fasalka marka laga baxayo inuu noqdo mid raad ku reeba ilmaha maskaxdiisa aqoontii aad adigu dhigatayna aanu khasaarin oo maskaxda marka wax weeyaan ilmihii waxa weeyaan bari ka maalin markaad weydiisay laga helayo arrimahaas halka ku jira iyo qaar kale oo kale dusha aynu kaga dari doono oo iska methodology-ga iyo teaching-ka wax weeyaan macallin wanaagsan iyo waxyaalaha laga doonayo iyo seminaarkeena ku saabsanaan doona mudane gudoomiye seminaarkan waa seminaarkii labaad ee aan u qabanno dugsiga aad iyo aadna waxaanu kaga mahadcelinaynaa saad nooga soo qayb gashay ee aad noo soo ajiibtay ee aad waxa weeyaan aad noogu timiday si aad qayb noqon noqoto oo waxa weeyaan aad noogu dhiirigeliso aadna waan ku soo dhaweynaynaa bihiin isku soo daro waxa weeyaan waa creamkii baan oran karnaa gobolkeena macallimiinta wax ka dhigayay weeyaan sababta daraadeed waxaan mar walba filaynaa inay ardayda soo saareen ay noqdaan arday tayeysan oo hadafkii qaranka laga lahaa ee waxbarashada iyo kii qoyska iyo kii qofkaba waxa weeyaan ka rumeeya arrimo way kala horeeyaan kulli class management kadib qofka soo halkan jooga uu garanaya laakiin waxa weeyaan wixii tilmaamo ah ayuun baynu saasiinaynaa qodob kale muhiim meesha ku jira waxa weeyaan exam setting kulli dawa jooga khubradii marka halkan waxa noo jooga waxa weeyaan macallimiin aynu way arag iyo aqoonba bidnay oo ina siin doono wixii tilmaanaya inta ka fara badan anagu ka iskuul ahaan waxa weeye seminaarkii hore waanu qabanay waxa laga yaabaa inaan si faktifa lagu daba gelin oo aan lagu daba socon baa laga yaabaa aqoon markuu macallinka ku shaqeeyay mid aqoontii baa laga doonaya marka su'aashu waxay tahay seminaarkan maxaa loo qabanay seminaarka waxa laga doonaya wixii aad ku shaqo timid adigu macallinow in lagu support gareeyo adigii lagu garab galo inaad sii wanaajiso laakiin taa macnaheedu ma aha in wixii halka lagu dhigto kaliya inuu shaqeeyo aqoontii markii hore aad ku shaqo timid waa laga doonaya waa kow intaasoo qarashaya intaasoo hawlo waxa way sababtan u galeynaa waa inuu adiga wixii ka dhima lagu kordhiyo hal mid un baad xasuusnaanaysaa waxa lagu kordhinayo ka seminaarkii koowaad buu ahaa imika lesson plan-ka ayaa methodology-ga ku jira waxa laga rabaa waxaad halka lesson plan-ka diyaarsatay scheme of work-ga diyaarsatay in laga dhaxarko markaad wax dhigayso waa inaad steps-kii raacdo waxyaalo badan oo madmadow isku jiray waynu kala saaraynaa oo macallimiinta qaarkood على سؤال بيت دول لكن lesson plan هي lesson notes كما هو دحية lesson plan هي lesson notes كي وحيالها هو دحية كل ده وين نوشوا معلومات خبرات دي وحوي تلمام فرا بدنا بنصين دونان لكن وحويان إنه كود دال ودمانتين هذا إنه معلنا هاي هذا إنه معمول هاي هذا إنه معمول كهين هاي كان طالما نقولنا وين الكود دال إن عروت الناس كفايدان أقانت هراء إنه صبرنا يا أقانت ما تلي نكردين أيو إنه كفايدان بندوننا أنا أقول لك مالشمان هذا بقل فرا بدنا ما سمعنا marka macallin si aynu wada guuleysano oo qaranku guuleysto ubad ku guuleysto inagu guuleysano dhamaanteen wada guuleysano waxa laga doonayaa waxa maanta aad baratay inaad qasaarin waxa maanta aad baratay macallinimada xitaa halkan ma aha meesha doontaba shaqo tag adigay wax ku taraysaa adigay u dhisay meesha tagtaba arday baad wax u dhigaysaa ama reer Soomaaliland ama ummad kale ha noqdee waxyaalo badan baad geedaay waxa la doonayaa inaad wax nidaamkiina inuu hagaajino hadii la yiraahdo سكر وحالك هادلي بروفيسور محمد محمود أو سليمان أوس waxa weeyaan qofku markuu professionalist yahay
de waxa la doonayaa inaanu oran anigu aqoonti waan leeyahay in wax kordhisto inaan waxani wax istaaga ahayn baa meesha ka muuqata in hawshaasi aad ku takhasustay ee maanta aad la shaqo tagtay in aad weliba wax sii kororsato maalin kasta waxbaa kaa dhimane aad sii gaadho ayay tahay ujeedadani waxyaabaha kale aynu doonayno waxa ka mid ah in uu qofkani waxa weeyaan waxaa loo dhigaya dee waxa weeyaan amba uu kordhisanayo amba dee waxa weeye maanta aqoontii dee guryaha dhexdooda taallaa ruumiska yaraynu saacano ayay taallaa inuu ku dabaqo nolosha uu ku jiro qofku wuxuu noqonayaa dameer malab sida haddii da cilmigiina uu sida aanu ku dabaqayna waxa weeyaan dee wixiisa productive ma noqonayo ujeeddada aan leenahay waxa weeye waa run aqoon waad leedahay waa run khibrad waad leedahay laakiin waxa aad adigu taqaanaa ma u gudbaa bulshada iyo caruurta ma u gudbaa mise aduunba kugu raraya taariikhdan waxaanu doonaynaa waxa weyn waxa inaynu ka dareenno ardaydeena waxaanu doonaynaa waxaasi inuu ka muuqdo bulshadeena ayaynu doonaynaa waayo waxaanu bedelaynaa waxa weeyaan waa bulshaynu doonaynaa halkay joogtay inaynu ka bedelo oo halkaa ka sarraysa aynu geyno kuwa inaga dambeeyana ay ka sii qaadaan waa sababta markaa tababaradan iyo magaranaysa aqoon kororsiyadan ay muhiimka u yihiin maamulka dugsiga iyo bahda cigaal iskuulisna guul baan u rajaynaynaa gabagabadna waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha waxbarashada gobolka Gabiley awalan waxaan marka koowaad u mahadnaqaynaa waxa weeyaan maamulka dugsiga cigaal oo runtii waxa weeyaan macallimiintiisii wax u dhigaysay ubadka aqoon kororsi u sameynaya in waxa weeye halkii ay taagnaayeen ay hore uga socdaan oo waxa weeyaan ay horumariyaan cilmigii ay hayeen oo ay ku dabaqaan wax dhigitaankii ay ubadka waxa weeyaan ay u dhigayeen runtii waxa weeyaan waa arrin xilkaasnimadeeda leh marka aad iyo aad baan arrintaasi waxa weeye u bogaadinaynaa macallimiinta halkan iyaguna u fadhiya waxa weeyaan inay tababarkaasi qaataan oo ay hadhow tolo ku dabaqaan baa looga baahan yahay waxay halkan ka kororsadeen shaqadii ay hayeen qiimaha macallinka ama shaqada uu macallinku hayo mustaqbalka ummadan oo qaranka Soomaaliland la doonayo waxa weeyaan inay hagaan oo majaraha u qabtaan cidii soo saareysay ee aqoonta ku shubaysay weeye macallinku ubadka aynu meel waxa weeyaan badan ay ka hoga tusaalayno in wadaniyada iyo jeclada aynu barno iskaashiga in iyagoo yaryar waxa weeyaan ay wax qaban karaan aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa anaga farxad weyn bay noo tahay waxa weeyaan dadkan aan mas'uuliyiinta oo hayno waxa weeye wax kala kororsanayo iyagu wax isku gudbinaya runtii farxad weyn bay ay noo tahay